caasho xaaji cilmi waxa ay ka mid ahayd gabdhaha Soomaaliyeed ee aqoon-yahanka ah ee markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya 1991 uu istaagay samata bixinta dadka dhiban ee Soomaaliyeed iyadoo isla xilligaas aasaastay ururo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo nabadda. runtii maalintaas gabdhaha Soomaaliyeed aad ay u liiteen aad ay u dhibaataysnaayeen tacliin ma aysan haysanin nolol ma aysan haysanin gabdhihii u kacay ayaa caasho xaaji cilmi iyo aamin ay ka mid ahaayeen. waxay aad uga dhex muuqatay nabadayntii iyo dib u heshiisiintii bulshada Soomaaliyeed ee waqtiyadaas socday. sanadkii 2002 markii dawladnimada Soomaaliya dib loo dhisayay waxa ay noqotay xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. caasho xaaji cilmi 30 sano ee ugu dambeeyay waxa ay kaalin weyn ka soo qaadatay badbaadinta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale nabadaynta taasoo ay ku mutaysatay abaalmarino caalami ah sida abaalmarinta Women of Substance Award oo la siiyay sanadkii 2005 abaalmarinta Blue Ribbon oo la guddoonsiiyay sanadkii 2006 African Women Peacemakers Award oo 2006 la guddoonsiiyay abaalmarinta kale ee Liberty Bell oo la guddoonsiiyay isla sanadkii 2006 Alternative Nobel Peace Prize oo la guddoonsiiyay sanadkii 2008 laguna guddoonsiiyay dalka Sweden Clinton Global Citizens Award oo la guddoonsiiyay sanadkii 2009 laguna guddoonsiiyay magaalada New York ee dalka Mareykanka. sanadkii 2013 caasho xaaji cilmi waxa ay ka mid ahayd 4 gabdhood oo Afrikaan ah oo dalka Malawi lagu guddoonsiiyay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize oo ay ku heshay dadaalkii dheeraa ee ay ku bixisay badbaadinta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed iyo waliba nabadda. isla sanadkaas 2013 caasho xaaji cilmi waxaa loo aqoonsaday inay ka mid noqoto 500 ee qof ee ugu saameynta badan dunida muslimka ah. marwa caasho xaaji cilmi oo deegaan doorashadeedu ay tahay magaalada Cadaado ayaa 12 sano ee la soo dhaafay waxa ay Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada ka samaysay waxqabad muuqda. waxay ka hirgelisay hay'adda badbaadinta haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed Save Somali Women and Children oo magaceeda loo soo gaabiyo SSWC taasoo xarumo ku leh magaalooyinka Dhuusamareeb, Cadaado iyo Gaalkacyo. boqolaal haweenah ayaa waxa ay bartay xirfado kala duwan oo ay nolol maalmeedkooda kula soo baxaan sida harqaanka ama tolmada dharka, samaynta cawda iyo tolmada qabada. sidoo kale waxa ay haweenka ka caawisaa agabka cuntada taasoo hooyooyinka danyarta ah u fududeysa hawsha guriga. waxay kaloo caawimaad u fidisaa dumarka la kulma dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan. qofka markii keeska uu ku soo dhaco oo naloo keeno neersin barnaamij kor qofka neersinka loo geeya ayada xaaladiisa soo ogaato markaas kadib waxa loo soo gudbiyaa qaybta maskaxda dejinta oo dhibaatada soo gaaray waxaas inaan ka caawino oo ka tala siino marka inuu qofka dhibkaas oo kale uu ku dhicin. marka aniga aan u dhameeyo maskaxda dejinta iyo qaybaha aniga ku siisay waxa loo diraa qaybta oo looyarka ama qareenka markaas dacwadeeda maxkamadda loo geey karo in markaas dacwada aan ka caawino oo maxkamadda u geeyno. way badan yihiin kiisaska aan caawino oo dhibaatooyin badan ay iska tabanayaan dumarka Soomaaliyeed. marka meeshan waxay u furan tahay waa dumar inta badan anaga waxaan caawinaa waa dumar waa kiisas badan oo inta badan kala kulmaya kiisaska oo dhibaatooyin. SSWC waxay xarumo caafimaad ka samaysay degmooyinka Cadakibir, Baxdo, Cadaado iyo Duculey waxaana hadda si toos ah u shaqeynaya xarumahaasi oo dadku ay ka helaan daryeel caafimaad. qoysas fara badan oo danyar ah ayay ka caawisay dhanka cuntada gaar ahaan xilliyada adkaa ee abaaraha. 12 sano ee ugu dambeeyay waxa ay deegaanada miyiga ah ee Galmudug ka samaysay ilaa 83 barkadood iyo waliba 11 ceel oo ay qaarna dayac tirtay qaarna iyadoo ay dhistay kuwaas oo ay ka faa'iideysteen kumanaan qoys oo markii hore ku dhibanaa helitaanka biyaha. SWC waxay qayb weyn ka qaadataa wacyigelinta bulshada gaar ahaan ragga oo ay u qabato seminaaro looga wacyigelinayo dhibaatooyinka haweenka loo geysto. waxa ay dhistay iskuulo tusaale ahaan waxaa ka mid ah iskuulka hoose dhexe ee deegaanka Gidhays oo ay ka faa'iideysteen arday fara badan. waxa kale oo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka samaysaa wacyigelino iyo waliba ololayaal la xiriira fayadhowrka. dhinaca kale marwa caasho xaaji cilmi dad badan ayay shaqo u abuurtay waxaana hay'adda SSWC xafiisyadeeda Galmudug ka howlgala
ilaa 160 qof oo siyaabo kala duwan uga shaqeeya. intaas hay noo joogto taariikhdii koobnayd iyo waxqabadkii Marwe Caashe Xaaji Cilmi. waxaad kala socoteen warbaahinta Awowe Media anigoo Cabdi Xasan Awowe ah ayaana soo jeedinayay.